gabadhan darbijiifta ayadoo hamburger iska cunaysay hal mar waxay dareentay in wax bir ah ay cunada u raaceen waxay arkaysaa waxaas inay ahaayeen faraanti qaali ah oo qadiimi u muuqdo wax yar ka hor ninkan faraantiga hamburgerka dhex galiya isagoo raba qoftan oo saaxiibadiis ah inuu lama filaan uga dhigo laakiin howshiisa waxaa ka qasay midan darbijiifta ah iyadoo ka codsatay inay cunto siiyaan midan gabadha marka koobaad way ku qaylisay marka labaadna hamburgerkeeda teesisay waxay ku dhahaysaa hal mar le ma naga tagi kartaa midkan isagoo ka walwalsan in howshiisa laga qasay midan waxay ku dhahaysaa caadi waaye iska day aniga dalbanaya mid kale isaguna ugu dambeyn waxa uu sheegay in faraanti uu ku dhex jiray hamburgerkaas oo rabo lama filaan inuu iyadu u sameeyo iyaduna markii hadalkaas maqashay intay si saa'id u faraxday waxay ku dhahaysaa maxaa u taagtaan kee waa ka daba tageena waa ka soo qaadayna laakiin isagu waxa uu sheegay inuu isagu ka doonayay iyadu iska joogto iyadoo aad u faraxsanay waxay wacaysaa midkan oo ah midko ay isla wataan qorshe aad u weyn markii uu taleefka ka qabtay waxay u sheegaysaa war farxad leh oo ah in saaxiibkeeda uu guur u soo bandhiga rabo sidoo kale waxay u sheegaysaa inuu hadda u yimaado aan u soo laabana markii ay midan faraantiga cunada ka dhexelaysay iyadoo aad faraantiga ugu farxi rabtay haddana waxay soo xasuusanaysaa wax islaameed inay xaaraan yihiin saaxiibkiina waa kana isagoo ka qoostay inuu iyada soo helo kadib midii darbijiifta ahayd si lama filaana waxay u arkaysaa oo ayna u maqlaysaa labadan oo qorshe aad u weyn maleegayo markii uu midkan u yimaadana midkan kale wuxuu iska soo jaraa marwey iga raali noqo qoftaa sheegaysa ma arkin markii arka waa kusoo sheegaa wuuna iska baxa kadib midkan saaxiibadiis wuxuu u sheegaa inuu soo waayo qoftaas meel walbana uu ka raadiyey waxay weydiinayaan haddii aad weysay faraantigaas guurkeenna ma hor istaagaya soo maahan wuxuu ku dhahaa faraantigaas aad uu muhiim iigu yahay sababtoo ah waalidiinteeda boqolaal sano iska soo dhexlaayeen dhinaca kale midii darbijiifta ahayd waxay u imaanaysaa midkoo saaxiibkeed ah oo